الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك الحميد المجيد. والله دمان يوجد واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين عاش لذن ما شاء الله عاش لذن ما أنت محيدين ودا وحين مقعيس انتين جوكته وحن سوي أدنى ما شاء الله ولا شيء قد يجي جرجيري أنا قبر ولا شيء نصرين ولا شيء كسور دبو جنر كيجي ولقى كم صو هذلين عملنا يا مركوب هريسة كهلي سدواي حلي هاي سود دبو كلي بعد هاي دمانتي الإسلام يا مجيء وراودهم شيء نسخين على ده دمانتي الإسلام ما شاء الله وحنا جونا هي قري قديجة ما تسكر نسين خديجة كسر دو جنر كيجي كل هذول لبو مشي قاعد دور مرة مقعيسي سؤالك سود ديسي سؤال هذا يقولي وسي ودا ما أنت حنوي ما إن قصور باقنا نقصو استن هبو قاعد يسوي تاجر ولا هالشيء على كسر دو كله. السلام عليكم أصحاب channel كعاشق وحرم والسلام يا عاش سيشتي ما شاء الله نسرين عدي يعاش عدي ما أنت تقول يجو إمادين يجو سبقين ما شاء الله. سؤال عن ربالكي إنا ويديو سؤال الدور ولي ما أوجع أي سؤال عشان ويدينا لكن سبرايس الله قديها وسؤال أي رأي جود يكذبنا عيان سأو أركان وجوابيان قف قصنا مركي وحلا ويديو رأي جسودي بنا وحقال هذا وحصح مجرو قف قصدو وحو أركواي مرك ما جرت الجواب صح الجواب قلدم وقف بسو فكرة ديسة يو حسق ومركز لفي عن نقطة مرك إذن كان ضدك أو أصحابته channel كعاشق وحرن إذن كنا كديبت رأيينا كومنك وحيسا أو أركتين again nothing wax qalad wax sax ma jiro qobsu wax uu arka waaye marka su'aasha ugu horeyso aan rabo inaan weydiiyo caasho iyo Nasriin waxa waaye qofka ka soo qaad hadaad gabartahay oo rabtid inaad guursatid qofka aad guursanaysid waxyaabaha aad ku dooranaysid maxay yihiin ha ahaato dabeecad ha ahaato wax kale maxaa kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan aad leedihiin qofkan guursanayna mustaqbalka waa lacala waxaas waa inuu heystaa mise dabeecadaas uu ahaadaa maxaa ku dooran lahaydeen su-aasha markaan waa ra'yi aad u wanaagsan maasha allah waana ku mahadsantahay saa ii weydiisay haddana waxaan ku weydiinaya horta animey magaciisa kow iga bilaabanaysaa ama waxay ka bilowday Nasriin ay ka bilaabanaysaa Nasriin adiga laakiin adiga had horta qof waxa tahay xaas ma sha Allah laakiin hadii ra'yigaada ma aan ina adiga sameynaysid laakiin hadaa ahaan lahayd okay lacala صح waa runta laakiin aniga hadii aan ku dhaho maxaa ku dooran lahayd already waa doortay waa haystaa ya guys markaan aniga hadii la dhaho horta 3 ma 4 maado ku dooran lahaa marka ugu horeyso waxaan ku dooran lahaa diinta maasha qofan diintiisa magaciisa aan fadhin faa'iido ma lahan oo diinta islaamka aan ku dhaqmaynin oo dhaqanka Ilaahay ugu talgalay uu sameeyeen kow labaad waxaan ku dooran lahaa dabeecadaha muhiimad because labada qofood markay isla noolaadaan ama nolosha inay isla qaataan ay rabaan waa in aan isku fahmaa dabeecadahi dadka dabeecadahi different kale yihiin markay guriga la isla tago banaanka waa been isku sheegi karnaa inta saaxiibo aan nahay sheekaysanayno qofka kale naash iska dhigi karaa laakiin you have to marka guriga la tago reality rasmi waxa yeeshaa guriga dhaqanka rasmiga meeshu imaanaya ninba dabeecadiis markaas la ogaan kara muhiimad waa dabeecada in horta ahaado qof wanaagsan ii sabraayo haddaan aniga xanaaq dejin karo hadduu xanaaqan waa dejinaan labo waa haysataa ahlu salaad horta inuu ahaado qofan salaad ilaahay maalin tukana maalin deynay isma wada karmaanaysa saddexaad waxay tahay qof balwad leh ma arki karo tii balwad ahayd ee ani waasdeeni qofka hadduu balwad leeyahay
balwad marka maxaa waaye ma qof sigaara cabo qof jaad cuno qof shiish ilaan balwad way badan tahay balwada halkii wayna kala daran yihiin way kala daran yihiin wax qamri ka daran ma jiro horta sax maanta runta dil isku sheegay haddaan muslim nahay anaga waxa noogu weyn waa khamri qofka balwada leh sigaara ugu yara marabaan okay saasa ku qabtanka afarteed su'aalood marka tan koowaad waxaa dhahay laba qaadan isma qaad Soomaaliya hore u dhaalay ya qof aan shaqaysanin oo afla iihay sax wax soconay mahan you have to qof shaqaysanay oo reerkiisi iyo noloshiisi iyo wuxuu dhalbari caawin karo inuu noqdo horta qofka laakiin qof afka kaligiis ii maciinay oo jaabkiisa taraqay muxuu ii sheegayaan ya muhiim waay leedahay ha u malaynin beesay rabtaa hasdeenaya guys bees rabitaan iga maahan laakiin you have to inuu qofka qof gurigiisa iyo noloshiisa iyo miiska iyo reerkiisa bixin karo inuu yahay qaban karo inuu ahaado okay qof aan shaqaysaneyn qofkayga maahan okay wakaas great shanta saasa ku qabtaan ma sha Allah haye Nasriin haye Nasriin adaa mudan tookadaada waay waxaa intaa sheegay waa iyada sheegto ma dhicine waa kala hormartay igala hormartay marka waxaa isku dayayaa maxay heeda 3 ilaa 2 inaan ka bedelo okay horta dhinaca diiniyan qof kasta waxaa waa guriga qofkiisa inuu qof diin leh ahaado sax dabeecad wanaagsan marka labada mid aniga ka bedeli lahaa waxaa waaye يعني قفك هدوء حتى أقول عق وليه بحاجته قف بقيلة إنه نقدره وأنا الوحبة بحين كرين هذا عنده هي كان العقم كدورنا أما محيه هذا قراعة حلاقي إنه أنا نكونش نسين كرين صح ما دين على عكته يعني وحاول بروبلم إجماعته صح يوم محيه هذا والد marka adi qof lacag leh oo lacag leh markaan ka wadna maahan inuu taajir ahaado laakiin qof isku filan ha muhiimadda waxa tiri waxa iiga ma dooranayo waxa laga yaabaa inuu lacag lahaado xataa isiineen lacag ha laga yaabaa soo lacag wax ku ma sameynayso adiga ahaan hada caafimaad ani aan qabo caafimaad u qabo ma aragtay hadeen dhufday lacag iimaanay sax iyo maxay heeda qof oo yani waalid fiican hada aabaha Soomaaliya waa aragtay sax hadduu hooyada uu qabo uu kaliya leh ilmaas maxay heedo aab u yahay sax hadduu hooyada iyo aabaha ay kala tagaan waxa waaye aaba meesha kuma jiro ilmihiisa kama warqabo qof waxaa jecelahay waalid fiican inuu ahaado aabaha oo ahaado aaba fiican haddaa isqabno stiil ilmihiisa sidii la ahaadaan haddaa kala tagna xitaa ilmihiisa sidiis inuu inkastoo ay ku yaraadeen wiilashan Soomaaliyeed gabdhaha ay ugu yeestaa because aan ka dhex kala raali ahow wiilasha Soomaaliyeed horta waxyaaba magaciisa horta maanta wax Soomaali aan ku doorsanayna ma laha hano xumaadaan no ani faray taagan wax kale ku doorsana okay waxaan ku sheegaysay adna diiwaan doontaa oo soo jeesanaya maanta adiga wax badan dadku su'aalo weydiisay adoo gadaal ku jirto haddana inaad su'aal ku weydiinaa go'aan ku gaarsannahay okay markaan hal horta wiilasha Soomaali aan been ku sheegay ajnabi iyo Soomaali markii la dhaho Soomaaliya qaadanaa sax أنا نين سومالي أكاي من أجنبي مرة عاد لكن هل علده ويلشنا سومالي ده لقى جرواي أما جانتاش هورنا وأقصه وأوير السبع هلا ده هذا بقول واي معناه هل علده سوالر لابنا يسانك صح لكن رد هدي لسكو شيء هل وحنا ليس هل سكول إني كسوة بحين صح قبل أنت اللي قبوه بس المهد اللي ربع maalinta iyada gabadha la furo waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 qofood oo ilmahooda si ilaalsanayo inay ku jiraan sax maxaa ka dhigay 80 qofood isku nooc maxaa ka dhigay sax hal galaas ma soo wada qaateen waajib ilaahay saaray waay ilmaha ala dhashay aday ka dhex beermeen hooyadaas kaligeed ma dhalin kaligeed iyadoo socotay ku imaha is guursateen adiga kaliga ahayd iidan kaligeed ahayd marka ilaahay wax isku kiin daray ilaahay wax ku idin siiyo ubax ilaahay idin ka dhex beeray laakiin caraf markuu dhamaado you have to inaad ilmaha hooyadu sii deeni ilmihii ka warqabtid adeena ku ilaalisid horta ilmaha waalidkooda ku fiican yihiin hooyadood iyo aabood inay isla joogaan sax way suurtagal weysmaha you have to inaad adiga ilmahaada aad magaciisa waalidka hooyada dhashay in horta ilmaha hooyada in laga qaato aan ma jecli because waxaan u leeyahay ilmaha said u xanaaneenaysa dadka kale uma soo xanaaneen
maar kastaba ma kuwii madax laga soo kuway hadda si kasta u ilaalisid hataa naa kala u geynaysaa hooy ayay u geynaysaa waayeel waa aday ku soo korisay sidii rabeen ma helayaan mar walba hooyada baalkeeda wax uga ran wal waa ilmaha adigana waxaa laga rabaa in adiga aad fiirin ilmahaas hooyadooda dhibaatada ama labadeen dhibaato ku kala taga ama wanaag ku kala taga laakiin you have to inaad adiga ogaatid ilmahaas in adiga aad dhashay xaqan ilaahay ku saaray taas dhowr marna waan ka hadlay single mother ay ku imaaday sheekadaas oo wax badan lagu daayacay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa maxaad qaadan lahayd sax su-aashan waxaan ugu soo daray waxay tahay wax kale maahan halkaas cilad ka waanto wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaadka u yeelateen ilaaha idin garab galo kale wax badan oo dhibaato badan oo qasan way buuxdaay ceebtana Allah asto aamin ya rabbi nasriin ana ku soo laabtay sorry marka waxaa tiri lacag muhiim kuma ahan waxa laga yaabaa laakiin inuu aabba fiican ahaa qof ilmihiisa ka warqabo aabba fiican uu yahay maxaa kale والله انت سلا وحكا قف قروح شيء ولا مخلويبين سي عمل قروح قروح هدي لا ما عرفت نو جايز دا اسكني وسين اوكي مين اكو شيء دغيس هذا من هدي سنين قروحان ku qaadana اوكي رياليتي ga laga hadlo رياليتي ma ka hadlo si nasriin iyo cashir ladan اوكي ايوه سو ku darsanay kuleedahay يعني waa ilaa mugta waxaan inaan ku darbo iska ilaa اوكي maadaama akeento kuma sida صح ay maxaa u qaadan lahayd quruxda ana ma qaadala qurux ba qaadala صح qurux aan dabcad lahayn maxaa sameeyay maya waay asoo qurxan oo qurux leh oo dabeecad oo lacag leh inta soo waa inuu xalad u lahaa kaas waxaa ma ka ma yani xataa yaa la dhihin baninkan maaragtay qurux zaa'id u leeyahay la waa idin waa ku cajibi oo maaragtay meel aan la mari karo sax qofkaas wax kasta ugu dul qaadan habeen sheegay xaqiiqda waxay tahay qofka horta qofka markaa isbartiin oo isdhexgashiin oo aad dabeecadiisa wixiisa fiican laakiin hadda maanta sadaan jidkaas maraayo oo aan qof kor ka arko oo qof ay cajibiyo qofka banaadinka waxa ugu horeeyo oo qofka ka cajibinayo waa qaabkiisa ma ahan inuu qurxanaado qof kasta dooq leeyahay waxa laga yaabaa in maanta markaan arko maanta waxa laga yaabaa qof markaan arko aan leeyahay nasriin ma sha Allah wiilkan aad u qurux badan laakiin marka aad ku tusoo kale mise caashiladana aan tusoo oo idinka u idin cajibinin marka quruxda markaan leenahay ma ahan in dad waxa jira la isku raaco oo qof kasta uu aaminsan qofkaas qurux u leeyahay quruxda kalena waa qurux adiga aad ka helaysid mid hadda waxa jirto waxa arkaysaa nin oo lacagta adduunka haysto صح wallahi waxa leedahay qofkan lacagtan uu haystay muxuu u samaysan waay ma qurxoono quruxda ma aan mugtaa in ama aragtay oo yani iska cadahay oo saan intaasaan kiin waxaas ma sheek Soomaali sheek Soomaali laakiin adoo ma aragtay adoo xitaa fildarada adduunka tahay xitaa istil qurux iska dhigtaa صح lacaga leedahay lacagtaadi yaa leedahay waxa fiican mugtaa inaad ku noolaatid oo ay ka muuqato laakiin ogow ya dad badan oo lacagta la siiyay lacag haystaan isoo loo isticmaalay garanayno way buuxaan wallahi عاد اسكول حالو فرا how to use your money هاي هيك حاول دباتو لعقت انا كان مقت والله وحارك شاتي شلay ku arag 3 biri wata miska bedelo xitaa ma bedela kaas ma canga lacagta adduunku haysta kaas asaga naftiisa wax qabsanaysa admu kaas waa gid aan nin baqiil nin lacag loo baqiil ah arkay mugta qof adin naftiisa wax u sameeyay ma laga intaadin ku sameeyay xawaa ka soo ma laga yaabo okay khadija su'aashaday kugu imaan no willis idik sukay su'aal kala idimane أنا واحد من الويدين أنا واحد الويديان لا ما تقول هاي واحد بدوار أنا مركلة عشان هذا عليك يقول أنا مركلة أنا كوانك سعرنا ما أنت معهن أوكي سؤال شيء دلوقت لبدي نبى كسوقات لعلا لقى هدلو يا حد معهن لعلا نسرين يعني قبل كسوقات إن ويلاس برتين سؤال أركتين دع والله في شيء كست حوجة ويلكي ديدو وكوبلمي نسرين أهان كسوقات عاش حاجة يديك نسرين ويلك بوكسوا عيو حك ده أوكي مالين هبلو سعر هبلو ديدا صعنا أوكي أتري ديد كمركي لا تجو وح مركي بيلك مركو إماده ملا بحين لها
mise waxaas leedahay qofkan asaa ay casuume asaa ay wacday mise you expect inuu isaga bixiyo mise half iyo half u bixin lahayd adisay kula tahay horta casuumaad asma kiimaad misane asaa ku wacday asaa wuxuu ku dhacay okay I like you I want to take you out camal asaa ku casuume ilaan qofka kusoo wacdo ku dhaha banaanka u soconaya isagaa ku casuumtay صح والله ما بixi lahayn صح hadaa ani casuumi lahaa asita kama ogolaadeen in maaragtay la sheer gareeyo half anda ana bixi lahaa ana casuumo hadoo si casuumi qofkaasna saabaxsanaa صح asadu ku wacdo hadoo si wacdo saabxinaa okay deedkii ugu horeeyay waa badan anaga runta marka la isku sheego Soomaali hadaan nahay gabar way yar tahay ma dhahay gabar kasta waa laakiin way yar tahay gabar intee nin wacdo heblow deynaan ku wada dhexeyso majority of the time wiilka soo waco wiilka dhaha okay deed okay ka soo qaad maalintii ugu horeysay marka ka soo qaad maalintii ugu horeysay waa baxdeen meesha tagteen wixii cunteen wuxuu ku yiri haye let's share the bill half au bixin maxaa half oo dhamagtaa waxaan sameyn lahaa halfkiis ma wada qaatay manaa bixin lahaa adaa wad bixin ana wad bixin lahaa mar daba ma laha bilahay mar kale ma jirto mar kale ani asla ma leen mida guusha qalbi okay aasto kada waa mar war cusub keentay kooda sax horta dhaqan gaalo sax ama dhaqan islaameed dhaqan islaameed adiga loo Soomaali special Soomaali horta dhaqankooda maaha sax ama deed ha ahaado sax ama ha ahaado magaciisa saaxiibna asxaabnimo ha aato sax mar alla marka banaanka loo wada baxo ama cashar la soo wada cunaayo ninka ragga kaarkiisa soo tuuri jiray waligiisba sax dhaqan aan u leenahay ma aha sax laakiin haday dhacdo wajigay damba hada ma soo istaagin kaas hatta leeyahay waa nin liite nin naag in jaabkeeda wax ka soo bixiso u sugayo waa nin liito sax nin ma ahan kaas camal waxaan leeyahay gabdho hadii la idinku sameeyay iyo hadii la idinku sameyn doonaba kabihiisa ku rara cagaboorey waaye iska dira walaa u bixi waa okay follow up su'aalan qaba marka labadiin hadda waxaad ahdeen maya no marabno never ma dhici lahayn marka laakiin marka run ahaantii okay wiilka sida kale uu fiican yahay qurux 10 out of 10 saakarabta waaye halaha ka taqaanid inkastoo markaas la isbartin dabeecad ahaan halaha ka aragtay ma xumo fursad kale ma siin lahayd mise waxaa dhahday once uu ila qaybsado bilka I'm done isku soo laabasho ma jirto nothing you're not gonna look back no way yeah waxaa jira ruuxda la sheega fiican okay maalintaas okay taasi first date ka waay first date sheegaysa 10 mar asaga meel ii wado asaga lay aniga no because inuu igu xisaabtaba ma ahan aniga sax aniga hadda iga soo goodo anaa baxsanayo anaa ka bixinayo hatta ma ahan ila qaybso ma garanayo sax maxaa haweenkeeba magaciisa isla qaybsanayeen adoo nin ragayna magaciisa naag waday oo meel geyso oo adiga damac ka leedahay oo nolosha inaad la qaadato aragti ama saaxiib la noqoto aragti how come adin magaciisa ku sameyn kartaa in half ila bixi sheekada gaalada waa taas kowda aan maleeyo okay so ani su'aalihiga labadaasi ahaayeen adamastmo yes hay insha Allah waa ku meesantii walaalahayga dhammaan inta inoogu jirto saad u aragtiin iyo ra'yigiina commentiga ku soo qora okay Snapchat-ka dadka qaar marka YouTube-kayga ay daawadaan Snapchat-ka comment ka soo bixiyaan way ka soo bixiyaan WhatsApp-ka ka soo bixiyaan please walaalahayga dhammaantiin waa ku meesantiin sida sharafta leh oo wanaaga badan aan magaciisa ii daawatiin oo ii xishmaysiin oo commentigiin aan u arko بس أنا جانا وحبي إيه ترسا واي عاوزين واسبوت جريسين ما شاء الله ربكين على هالقلب وحين الله يهلك ما دا إذا قعد صناعي كومنت يجي قفكي كومنت إيسو قرايو سدوا ناكسن الشرفت بدنا يقولوا حريران بليس بحدين قعد صناعي إن يقولوا قرتين يوتيوب كيجا بليس because وحن ساس أقول لي هاي كومنت يجي بقولك بس عشان وحن أكا كومنت يجي وحي أبديهن سناب شات emoga iyo WhatsApp-ka
commentiga lagu soo qoro youtube-kayga saas uma badno anna taasay iga caawinaysaa guys saad shalay iigu soo qortay sharaftii iyo wanaagii iyo kalgacaylka ii qabtid aad iigu soo qortay bilis waxaan idinkaga codsanayaa inaan iigu soo qortiin ninkaan email haysan ma haystay oo meesha kusoo qori kara waa iskaga soo qori karaa laakiin inta emailka haysato oo emailka u shaqeynaya bilis waxaan idinka codsanayaa inaad kusoo qortiin commentiga iisoo qoraysin snapchatka iigu soo qora youtube-kayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka codsanayaa subscribe-ka like-ga share-ka insha allah okay and one last thing guys gabdhaha kaliya gabar haddaad tahay ra'yigaada maxaa waaye first date-ka do you expect inuu wiilka bixiyo iyo inaad half iyo half u kala baxsataan meesha kusoo qora commentiga ra'yigiina ka dhiibta wiilashana sidoo kale idinkana maxaa aad u malaynaysiin ma gabdha waxaa leedihiin 21st centuryga lagu jiraa 2020 la marooyaa gabdhaha haafkooda inay baxsadaan waa maa leedihiin mise waxaa leedihiin sida diinta u tiri nimanka ka mas-uulana gabdhaha mise sida dhaqanka weli idinkaa bixinaayo so qof kasta ra'yigiisa ha soo dhiibto wax qalada ma jiro wax saxa ma jiro qof kasta ra'yigiisuu ka hadlayaa waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة شاوعنا وناكسن لنا عسلنا هلو بطو